بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Maxamuud Faarax waxaan u maleynayaa intiina badani waadi wada garanaysaan waxaan kamid ahaa dadkii uu ku dhacay xanuunka koroonuhu ee koomada u galay 4 week Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa iga badbaadiyay waxaan Ilaahay ka baryayaa intii inaga dhimatay xanuunka u dhimatay iyo cudurro kalebana in Ilaahay u naxariisto inta uu sidayda oo kale ka badbaadiyayna in Ilaahay caafimaadkayga u siyaadiyo inteena uusan ku dhicinna in Ilaahay uu dhinac ka mariyo xanuunkani waa xanuun aafa ah oo aad u dhib badan kuma lay geliyay waxa iigu horeysay adduunka marka Ramadaan baa soo dhaweyd xilliga isaga waxa adduunka iigu horeysay iyadoo leeyahay waa la ciiday Ramadaantii waa laga ciiday inta dunida guudkeeda waan ka maqnaa runtiina wuxuu ahaa xanuun aad u daran oo aan wax aan ku qiyaasi kara uusan jirin ayuu ahaa marka ma garan karo wixii dhacay 4 wiig oo 28 cashan kuma ku jiray wixii dhacay uma garan karo ilaa riyooyin iska waaliya mooyaane laakiin kullay markii dhakhaatiirta warbixinta ay qaraabada siinayeen maalinna hoos u dhac weyn baa imanayo lagaba shakiyo maanta inaan tahay maalintii adduunka iigu dambeysay maalinna ka soo reyn bay ahayd dawooyin badan baa laygu tijaabiyay antibiyootiga alxamdulillah nolol baa ii laabnayd inaan maanta halkan istaago akhiiran koomadii waan ka soo baxay waxaana la ii sii gudbiyay dhakhtar kale oo weyn oo ku yaala gaadhamoon kaasoo dib u soo nooleynaya jidhka waxyaabaha la yaab kale aan xanuunkan kala kulmay waxaa ka mid ahaa markii aan koomadii ka soo baxay waxaan is arkay anigoo sidii ilmo dhashay wax kastoo awooda hadalkii dhaqaaqii muruqihii way iga tageen bil iyo bar bay qaadatay inaan soo fadhiisto oo dib la ii soo nooleeyo tareerin badan kadib anigaa maanta alxamdulillah idin hortaagan ilaahay baa mahad leh haddii ay tahay example fiican sida ay dadka qaarkii ku doodayaan oo ah inaan la helin walaalaha ka mida wuxuu leeyahay weli ilaa iyo maanta 100 sanadood lama helin dawada hargabka uma noqon karto sabab inay vaccine-kan uusan shaqaynayn inaan dawada hargabka la helin hargabku waxa weeye maaha cudur weyn oo dilaaya waa cudur jidhku ku filan yahay laakiin koroonuhu waa cudur aad khatar oo dilaaya cudurro badan oo vaccine loo helay baana jiro oo aniguba aan qaatay oo influenza vaccine baan ka qaatay maalin dhow uu leeyahay lama helin walaalku waa la helay waan qaatay isla November baan waxa qaatay influenza vaccine marka taaf laftigeedana dadka jilicsan waxaan kula talin lahaa inaad qaadataan mana aha dadka in loo sheego waxaan jirin oo aan ku saabsanayn raad lahayn oo wax raad loo dadka waa in loo sheego xanuunkana waa xanuun khatar sida uu yahay waa inaad uga taxadar xanuunkii marka khatarta lahaa in qof uusan ku dhicin intuu u yimaado dadkii waayeelkii iyo dadkii xanuunsanaya uu yiraahdo talaalku waxa lagu sameeyay si degdeg ah iyo talaalkani ma waa wax faa'iido ma leh iyo taas waxay noqonaysaa inuusan ka warhaynin xanuunka iyo xoogga uu leeyahay waxaan leenahay alla kuguma rido haddaad caafimaad qabto laakiin walaalow dadka masaakiinta khaasatan dadka waaweyn iyo dadka u nugul xanuunada ha iska hortaagin dadka badan aan gaarsiin doono oo dad badan ay qaadan doonaan talaalka positive-na u arki doonaan insha Allah anaa dalbaday markaan dalbaday 8 bir ka bacda la ciyaar marka waxay ku xiran tahay haba sida xarakaadka sida wax loo geliyo waana dadka in wax lagu baraarujiyana waa shay sax oo muhiim ah tan kale talaalku waa ka hortag qof walbana waa ku waajib diinaya inuu qaato laakiin ogolaanshaha inaad noolaanayso in kale Ilaahay u taala aniga iyadoon waqtigeygii la gaarin ayaan muddo 2 bilood maalin walba wacay oo laha war talaalka halaysiyo hadda waxaan ahay talaalkaygu waa ii buuxaa waad aragtaan calaamadii waa aniga haysta wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala keena raali baan ku nahay laakiin waxaan leeyahay alwaqaayatu khayrun min al-ilaaj ka hortagu wuxuu ka khayr badan yahay daweynta haddii adiga oo ku nool guri yar oo 60 kwadraad mitir oo 10 qof ah oo bulshada ku nool oo sidaa ugu nool aad talaalka diido asay qaadatay gabadhii wadankan oo dhan state ministerka ka ahayd iyadu guryaha ballaaran haysatay ee kala fogaanshaha haysatay ilaah baa xanuunka keenay ay nafteeda ku aamintay naagtii dalkaas oo dhan maamulaysa sabab adigu aad uga baqdo ama wax aan la garanaynin oo guruun aad u samayso tiraado talaalku khatartaas u leeyahay ma jirto cudurka ka khatar badan waana la talaalay alxamdulillah caafimaad baanu dareemaynaa xurriyad baanu dareemaynaa safarkii baanu xurriyad ka dareemaynaa safarka xiriir baad kala kulmi doontaan haddaba ogaada dadkiina talaalka diiday oo waxa iman doonta maalin dhow inaadan xataa xuduudka Sweden ka soo adeegan karin talaalaan marka inta goorta jaaniska aad haysatay uu ku banaan yahay ka faa'iideysta khaasatan dadka shaqaynaya ummadda u shaqaynaya waad ogtiin inagu shaqooyinka waxaynu ka shaqaynaa public sida transportation-ka nadaafadda siikayamayaasha sheenistayaal baynu nahay
maadaama aynu bulshada u shaqaynayno kontaakti badan baynu bulshada la yeelannaa marka walaalayaal qaata tallaal waxaan qaatay tallaalka la yidhaahdo Moderna markii la tallaalo aan halkaa imida dukaankaygaan horey ka gatay xanuun kuma arag dhib kuma arag caafimaad baan dareemay insha Allah midda kale 25 bishaan qaadanaya waxaan idinku dhiirigelinayaa qof walba oo aan tallaalka qaadano maadaama wadankan xanuun maasheeyay uu joogo oo meel walba qabsaday adduunka oo dhan innagana ina dhibaataynaya waxaan idin leeyahay tallaalka qaata waxaan Soomaalida ku dhiirigelinayaa inay qaataan cirbadaha labada cirbadood aniga mid waan qaatay wax xanuuna ma arkin waxaan qaatay 14 bishaan haddana 24 bishii hore 24keedii bishaan 24keedana waxaan u balansanahay cirbadii kale ilaahay idankiis waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan ku caafimaado oo aanan waxba ku noqon anigu markaan iska hadlo waa qaatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ma igu dhicin waana qaatay labadii cirbadoodba waan qaatay oo tallaalka ahaa sidaa daraaddeed bini aadanka ummadda oo dhan iyo islaamka oo dhan iyo ummadda oo dhan bini aadanka oo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay qaataan tallaalka culimo iyo caamaba inay qaataan ayaan ugu baaqaynaa inaan qaatay tallaalkii 10kii bisha May dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa xanuunkan aafada ah inaysan u dhuuman ayaga iyo ilmahooda iyo xaasaskooda waa isturaan kana faa'iideystaan jaaniska qaaliga ee dawladda adduunku soo saaray daawada adduunku soo saaray saasaan Soomaali ugu baaqayaa warqaata tallaalka qaata xanuunka la dagaalama ilaahayna ka shaqeeya inaan qaatay tallaalkii haddana 15kii bisha May inaan qaatay kii koobaad kan labaadna inaan qaadan doono haddii ilaahay idmo 26 bishaan soo socota waan qaatay vaksiinka waxaan bogaadinayaa dhammaan Soomaalida inay qaadato vaksiinka aadna ugu faraxsanahay runtii anigu waan qaatay labada tallaalba waan qaatay tallaalka hore wax dareenama maanan ka fahmin laakiin kii dambe xoogaa qandhaan ka fahmay oo maalin iyo habeen ay haysay Soomaalida waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan meel kasta ay joogto daawada tallaalka inay qaataan waxaan qaatay tallaalkii koowaad kii labaadna ay dhameeyeen 24 qadana waxaan dadka iyo Soomaaliyeed iyo dadka aan la joognaba kulligeenba ku wacyigelinayaa inuu daawada la qaato ama tallaalka la qaato ay tahay wax wanaagsan wax dhib ah oo hadda hayeen oo tallaalkaas leeyahay ma jirto haddana wax walba mar haddii lagu yiraahdo caafimaadkaada iyo dadka la degan tahay nabadgelyada ku jirto waa la qaataa waxyaalaha tallaalkan waxay u wanaagsan yihiin naftaada iyo adigoo dadka kale difaacay ama mirta la qaatana waa wax aad u wanaagsan